دورت waxa weeye arrintan commissionku waa in badan bay soo socotay 2 sano ay socotay in fact waxaana weeye waa arrin aad u sahlan waanagu waxay heedaan xusbi cidnahay hor priority-gu in doorasho dhacda bay oo dalkana u dana anaga noo dana asxaabtuna dimuqraadiyadna u dana magaciina u dana hasaatee wajitantay waxaan wadanigan 3 wada galay heshiiska galay inay ka shaqeeyeen international community halka marka waxa weeye waxa tii marka xeerka in la raaco shuruudihiisa ayay marka xeerka shuruudihiisa madaxweynuhu waxa nagu ilaaliya xeerka madaxweynaha marka aan xeerka nagu ilaaliya uu ku ilaaliyay guurtida uu ku soo daayay xabad ku celiyay marka nasiib daro waxa noqotay in dese ay ka noqotayba madaxweynuhu waan ildoofi karaa in ilduufa laga yaabay inuu marka hal xubin oo dee active ka ahaa xusbi kulmiye oo dhowaan haya kelibis ku hadliyey aanu u daaray taas hadda keentay dhibaatada inta laakiin xubintaas miyaa la hayaa caddaynaya inay xisbiga kulmiye ku jirtay kelibisiiskii August baa la hayaa wasiir buu ahaan jiray laakiin haddii uu xisbiga ka baxay miyuusan xaq u lahayn inuu noqdo komishanka doorashooyinka marba hadduu qof siyaasad galay marba hadduu politician noqday partisan noqday horey u soo baxay tani waxaa jiray magaalada saayay maxamed xaashi ayuu madasha jooga waxa soo magacaabay kulmiye riyaala diiday waxaa jiray ilhaan soo magacaabay kulmiye riyaala diiday maxamed ismaan fadal oo soo magacaabay wadani oo shiraay diiday this is normal life dhanka kale golaha guurtida iyo golaha wakiilada Soomaaliland baa iyana loo sameeyay muddo kordhin idinku ka xisbiyan sidee u aragtaan golaha baarlamaanka iyo guurtida waxaan u arkaa inay sharci darro yihiin waxay soo saareen sharci daratay sharci oonaya guurtidu ha joogto oo markuu odagu dhintay inankiisu ha maamulo horta ma jiro sharci oonaya baarlamaanka hadduu waqti iska dhaco ha loo kordhiyo oo oranaya ilaa in baarlamaan la soo doorto ha fadhiyan horta ma jiro waxaan ugu bilaabay administration kan ka horeeyay kulmiye ayaan ugu bilaabay oo sanad 8 baa u kordhiyay oo waxaan isaga imaka u bilaabay maayo wax hore loo bilaabay wana foolxumada ugu weyn dalka Soomaaliya ku jirta marka ku faano waxaan nahay dumaraadi la ilaa maxaa dumaraadi badintiin laba house haddana waxa jooga local councilka oo loona kordhin kana dhamaatay marka dhibaatada maanta haysta waxa weeye Soomaaliland waxaan u muuqanaa ummad aan sharci ku socon sharciga islaamka kuma socono kii aan qorano kuma socono kii Soomaalida inoo dhaxeeyana aan ritaa kuma socono marka ummad aan sharciba ku soconin daway adag si ay u noolaan kartaba dhibaatada ugu weyn horta maanta waa taas laakiin cidda qasabtay in la kordhiyo ama aanay xisbiyadiina ahayn oo aydan idinku komishankii doorashada qaban lahaa aydan imika muranka keenin oo aanay hawsha halkaa ka xayrnayn ma xayrtaa waa leen canaantaas laakiin waxa weeye madaxweynaha ayaa gacanta ku haya way iman jirta murankan mar kastaba madaxweynaha oo xilku saaran yahay doorashada riyaale aniga kulmiye riyaale xitaa waxaan ku qasabnay oo naga ogolaaday in la soo kala horeysiyo doorashooyinka marka waxa weeye consensus kan iyo goorad waxa bixin jiray madaxweynaha waan ku qaldanay taas waan ku sheegay anagana ma ahayn wadani waa laakiin waxa la doonayay madaxweynuhu inuu isagoo sharciyan in wadanka doorasho ka qabto waxyeelka loo qabtay loo doortay idinka ka xisbi ahaan xisbiyadiina laftiina waxa la idinku dhaliilaa inaad gudoomiyaasha laftooda aysan ogoleen in cid kale xisbigii timaado ayaga laftoodu muddo kootaysteen xisbiga kaalintii u sarreysay taas waxa anagu haddaan aragno cid markaan intaasan ku jiray haddaan arko qof kaawabala oo xisbiga geynaya oo sharciga iyo platformkiisa fulinaya waan iska nasan lahayn laakiin wax principle leh oo xisbiga soo geliyo inuu ajandaha fuliya Soomaaliland kuma jiro kuwa maanta markay iska daayana xisbiga ku jiraan Soomaaliland ba hadduu sharci ka waayo maanta xil ayuu xamar tagaya ummad principle ayaan ku jirnaa marka waxaad leedahay 20 sano ku dhawaadaan xisbiga cid maamulayay waxaad weydii cid aad xisbiga tiraahdo aad ku aaminto ma jiro bay sheeg ana waa kacay suuqlada beesha caalamka aad sheegtay inay idin leeyihiin dimuqraadi ma tiidin soo xisbiyada laftiina la dooran maayo idin ma dhaantaan oo nin waliba halku ku dhaw kootayst ma qofka hadduu doorasho keeno la doorto is democracy hadduu doorasho qaban waaya ayaa la oranayaa hadduu dastuurka bedela oranayaa waa dictator laakiin haddii ma doorasho tagto waa lagu celin karaa waa lagu ilaa inta helis la heliyo wada laga leeyahay istili waa uu keeni karaa guul taas wax lagu marmasoon maaye ee waxa marmasax weeye qofka doorashada diida